aad ugu faraxsanahay halkan inay fadhiyaan dhalinyaro aad u badan oo runtii aan aad ugu sii diirsaday inay ka buuxaan gabdho Soomaaliyeed oo aad u badan. madaxweyne adiga iyo marwadaada waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida sharafta leh iyo karaamada leh adigoo hogaaminaya dhammaan madaxda iyo shacabka reer Puntland oo aad soo dhaweyseen aniga iyo waftigayga waa ku mahadsantihiin guriga iyo wajiga furan iyo Puntland aad albaabadeeda noo furteen. madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan golaha wasiirada iyo dhammaan madaxda kale oo iyaguna na soo dhaweeyey waa u mahadcelinayaa. waxaa kaloo u mahadcelinayaa dadkii Soomaaliyeed ee shalay isu soo baxay laga soo bilaabo aeroboortka ilaa aan mid magaalada taagnaa jidadka iyagoo aan aniga ii taagnayn ama madaxweyne Cabdiweli u taagnayn laakiin u taagnaa rabitaanka ay u qabaan dowladnimo Soomaaliyeed. waa ku mahadsantihiin. waxaan mahad gaar u celinayaa dhammaan ardayda halkan isugu timid iyo ganacsatada culummada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada si ay aniga iyo wafdigayga noo soo dhaweeyaan. laakiin waxaan mahad gaara u celinayaa jaamacadda bariga Afrika oo iyadu noo fidisay gogoshan. waxaan dareemay in magaalada Garowe 20 sano oo dawlad goboleedka ay ahayd ay ku qaan gaartay inay fahamto wax may aan islaayahay weli dad badan oo Soomaaliyeed maanay fahmin. waayo soo dhaweyntii shalayto sidaan sheegay waxaa ka muuqday jacayl dowladnimo, waxaa ka muuqday bisayl iyo dulqaad, waxaa ka muuqday runtii ma aha inaan idinku ammaanayo laakiin haddii aan qalbigayga ka hadlo soo dhaweyntii shalay waxaa ka muuqatay dadnimo ku dayasho mudan. waxaan aad ugu faraxsanahay marka idinkoo haysta xasilooni haddana inaad haysataan jaamacado oo dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ay jaamacada dhigata ama Muqdisho ha ahaato ama Garowe ha ahaato ama Boosaaso ha ahaato ama Kismaayo ha ahaato. su-aasha aan rabo marka maanta inaan isweydiino waxay tahay haddii 75% aan nahay dhalinyaro haddii aad jaamacada dhigataan waxaan rabnaa inaan isbarbar dhigno sida mustaqbalku u ekaanayo haddii aan u dhaqanno dowladnimo iyo sida uu noqonayo haddii aan ka faa'iidaysan weyno fursadda. marka hore 20 ama 30 sano oo soo socota kadib haddii ay idin gaarsiiyo dadka Soomaaliyeed iyo dawladoodu waxa ay leedahay fursad aanay lahayn dalal badan oo dunida ka mid ah. sababtoo ah maadaama dhallinyaradeennu ay yihiin hadda 20 jiro waxay leeyihiin xoog ay ku shaqeeyaan 20, 30, 40 sano soo socota. marka wadamada dariskeenna ama wadamada kale oo dunida oo ugu horeeyaan Yurub iyo wadamada horumaray ay shaqaalahooda iyo maskaxdooda iyo xoogoodu uu daciifi doono annagu waxaan leenahay xoog sababtoo ah dadkeennu waa dadkan hor fadhiya. su-aashu waxay tahay marka haddii dhallinyaradani aanay helin fursad, haddii aan waxbarasho loo aasaasin, haddii aan qabyaaladda laga fogeyn, haddii aan dowladnimo iyo midnimo lagu soo dabaalin 30 iyo 40 sano soo socota Soomaali sidee bay noqonaysaa? waa su'aal ay muhiim tahay inaad isweydiisaan qof walbo dhalinyaro oo dhageysanaya iyo qof walbo halkan fadhiya inaanu ka fikirin maanta iyo berri laakiin aan ku xisaabtanno 30 sano 40 sano soo socota. sidaas daraadeed waxaa muhiim ah inaan ka fikirno maadaama aan leenahay fursad weyn
fursaddaasi ay noqon karto tii aan deriska iyo dunida kula tartami lahayn ama uga hormari lahayn inaanan fursaddaas khasaaro u rogin. idinka marka haddii aad tihiin dhallinyarada iyo madaxda iyo shacabka reer puntland waxaa idin saaran mas-uuliyad ka weyn kuwa kale, maadaama meelo badan oo waddanka ka mida aanay helin fursadda xasilooni oo aad hesheen. markii madaxweynuhu maanta waday uu soo tusay mashruuca dowladnimada puntland oo lagu dhisay isku tasho, waxaa muuqatay in horumar weyn aad samayseen. wasaaradihiinna iyo jidadkii aad ku dhisateen maskax iyo xoolo ay leeyihiin shacabka reer puntland. marka haddii aad warshad leedahay, warshaddu waxay u baahan tahay qalab cayriin oo aad geliso si aad u soo saarto waxa aad soo saari lahayd. marka aad soo saarto waxaad u baahan tahay qalabkaas inaad suuqa geyso si aad u iibiso. markaad suuqa geysana waxaad u baahan tahay inay jirto cid leh awood ay kaaga iibsato si aad mid kale u soo saarto. qalabkaad soo saaraysidna waa inuu yahay mid la tartami kara kan dunida lagu sameeyo. waxbarashadu waa intaas, waa noocaasoo kale. macnaheedu waxay tahay waanan isku daboolnaa aasaaskaas. ku dhowaad 30 sano ayaan marka haddii aan nahay dadka Soomaaliyeed waxaan u muuqannay inaan dunida ka harnay. maanta waxaan hor taalla fursad aan rabo dhallinyarada halkan jooga iyagu inay hormuud ka noqdaan. waxaan rabaa inaad qaadataan mas-uuliyaddiinna, sababtoo ah halkan aad joogtaan waxaa ka soo baxday dhallinyaro yaryar oo ahaa kuwii ka qayb qaatay inay dhaliyaan xornimada waddanka, kuwii ka qayb qaatay inay keenaan dowladnimadii laga diltay. idinkaa ka dhaqaalo badan, ka aqoon badan, ka fursad badan. waalidkiin ka dhaqaalo badan yahay. sideebaad rabtaan taariikhdu inay idin xusuusato marka loo barbar dhigo kuwii halkan ka yimid oo iyagu dalka xoreeyay? waxaan u baahannahay siyaasad hufan oo kala saarta awoodda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka. siyaasad hufan oo ku jira awood qaybsi iyo khayraad qaybsi. siyaasad hufan oo matasha shacabka Soomaaliyeed. sanadkii iyo xoogaagii ay jirtay xukuumadda hadda dhisan, waxaan idinkugu bishaaraynayaa marka ugu horraysa inay tahay oo madaxweynuhu ka markhaati kacayo shirka hadda la isugu tegay Brussels, in adduunyadoo dhan ay isku raacday Soomaaliya waxay leedahay fursaddii ugu weyneed. inay yidhaahdeen waxaa la soo gaaray wakhtigii la aamini lahaa. inay yidhaahdeen waxaa la soo gaaray wakhtigii dhaqaale si toos ah loo siin lahaa. inay yidhaahdeen waxay ku dhacday jidkii deynta looga dhaafi lahaa. haddii aad fiiriso marka shaqada waddanka ka dhacday sanadkii la soo dhaafay, meel walba aad ka fiiriso, inkastoo ay culus tahay in weli qof walba uu dareemo, waxaan isweydiinaynaa ma ku socdaa dariiqii loogu talagalay? su-aalaha adigu jawaabi karta marka waa maxay? kow, muxuu la eg yahay dhaqaalaha waddanka yaalla markii la barbar dhigo intaanan iman ka hor? su-aashii waxay tahay wuu ka badan yahay. labo, maxay la eg tahay lacagta caddaanka bangiyada dalka taalla markii la barbar dhigo intaanan waddanka iman? su-aashii jawaabteedu waxay tahay way ka badan tahay. saddex, 70 milyan oo dollar oo gudaha ayaa lagu lahaa dowladda Soomaaliya markaan anagu nimid. su-aashii waxay tahay meeqa ayaan ku darnay intaan anagu joognay? jawaabteedu waxay tahay shilin kumaan dirin. meeqa qofood ayaa mushaarkeeda weysay intaan joognay oo dowladdu u shaqaynaysay? su-aashii waxay tahay qofna maanay weyn. dhaqaalaha soo gala dowladda inta hore ma ka badan yahay mise wuu ka yar yahay? haa, wuu ka badan yahay. sicir bararka waddanka sida hore ma ka wanaagsan yahay? haa, iyadoo ay World Bankiga iyo IMF qorayaan. awoodda wax iibsashada shacabka Soomaaliyeed inta hore ma ka wanaagsan tahay? haa, way ka wanaagsan tahay.
فقرك الصومالي نمدا نمبر أهان شن إلا 10% هوس مو دعي سيدا أنو نمد هاو دعي GDP الصومالي مالنتا نمد الله هذا انت هرم كفي عيا هاو كفي عيا قف كان آمنين لحرير وول بانكية يا آية مفتى أما وزارة قرشين الدولة الفدرالية الصومالية annagu Soomaali hadii aan nahay waxaan rabnaa inaan ku dhaqno dadka Soomaaliyeed aqliga qarniga 20aad iyadoo la joogo qarniga 21aad ha aqbalanina taas idinka dhalinyarada wadanka hadii aanan adduunyada la tartimin dhibaato dhacaysa waa nasiib darro marka in maantay iyadoo dhibkaas uu nahaysto in adduunyada isku jirto tartankaas weli ayna hor taagan yihiin dhibaatooyin qabiil kuwa kala qoqobnaan waana wax ka baran ku dhawaad 30 sano oo la soo dhaafay waxa kow ka ah hadda aafadan cusub ee dagaalka ah ee tukaraq ee hortaala waa in dagaalkaas lagu bedelaa xasilooni waa in lagu bedelaa horumar waa in lagu bedelaa midnimo waa inaan niraahdaa dagaalna dooni mayno midnimada ummadda Soomaaliyeedna waa muqaddas dadka Soomaaliyeed meel kale aadi maayaan hadday wax kala tirsanayaanna waa inay isu yimaadaan waa haddii aad dhalinyaro tahay haween tahay culummo tahay qof walba oo Soomaaliyeed waa inuu aqbalaa dib waxaa noogu filan 30 hore sano la soo dhaafay ku dhawaad waxaan doonaynaa marka dhalinyaradu inay iyagu noqdaan tabliiqa cusub ee nabadda iyo dawladnimada sama ma jireen tabliiq kuwa weynaa tabliiqooda waa la dhagaysan waaye waana idinku noqotaan tabliiqa cusub ee nabadda iyo dawladnimada waa in dhalinyaradu ay fahmaan sida keliya oo dalkana dibka uga bixi karo inuu yahay inay iyagu noqdaan indhaha uu dalku wax ku arko sida keliya aan dibka uga bixi karno waxay tahay idinku inaad noqotaan gacmaha uu dalku wax ku qabto sida keliya aan dibka uga bixi karno wuxuu yahay idinku inaad noqotaan dhigaha uu dalku wax ku maqlo sida keliya oo dibka looga bixi karo mustaqbal u dhigma dawladaha dariska iyo dunida inteeda kalena waxay tahay idinku inaad noqotaan wadida dalkani uu wax ku fuliyo